kaamka barkacyaasha Shangal ee dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Buuhoodle degan dadka ku xoolay way abaarta soo martay Soomaaliya dadkan oo halkan deganaa in ka badan muddo 6 sanadood ayaa waxay cabasho ka muujiyeen hay'adaha wax soo gaarsiiyay magaalada Buuhoodle NGO-ga Samantu ay wakiil uga tahay Nimco Xasan Cabdi oo fadhigeedu yahay magaalada Garowe ayaa waxay cabasho ka muujiyeen inayna soo gaarsiin wakiilada Buuhoodle soo wakiilata wax qaadara ama caawima dadkan waa dadka degan kaamka barkacyaasha Shangal waa kuwan iyagoo ka hadlay cabashada ay ka muujinayeen NGO-ga Samantu markaanu nahay barakacayaha shakaamka ee DBS ka Shangal markaanu nahay waxaanu rabnaa inaanu ka hadalno baahiyaha jira iyo waxaan loo geysanayo iyo waxaan lagu hayo iyo dhibaatada naga haysata dadka maamulka u hayo gobolka Cayn waxa weeyaan maaha macnaha nalama keenin baabuur ma nihin laaji ma nihin dad meel laga keenay waxaanu u dhalnay Buuhoodle waxaanu joognaa gobolka yagi waxa ku soo baxa hanti baa ku soo baxda kaareer baa ku yimaada adduun baa ku yimaada waxa isu qaybiya hantiilayaasha Buuhoodle haysta waxa isu qaybiya maamulka gobolka Cayn ee Buuhoodle jooga hadduu yahay ka WFP qaabilsan iyo hadduu yahay ka maxaan ku dhahdayay hay'adaha kale horgalka u ah ha u weynaado ninka la yiraahdo Cabdi Farax waxaan leeyahay Cabdi Farax iyo hay'adda la yiraahdo Sabantu NGO-ga la yiraahdo Sabantu ee ay horgalka u tahay Nimco Xasan Cabdi haddaad noogtiin haddaadna noogeynba annagu waxba idin kama hayno waxaanu nahay maata degan kaamka 2017 bishii 12 baanu degnay cid nooma timaado WFP ma aragno cid kale ma aragno nin lacag le baa nagu soo qaatay NGO nooma yimaado war nagama hayo waxaad moodaa inaanu nahay laaji laga keenay meelo baabuurina dhigtay baabuurina ma keenin dadka xaquuqda lahaabana dadkii dalka lahaabana dadkii rayidka lahaabana waa nalagu tumanaya dadka nagu tumanaya ee ka soo qaadanaya hay'adaha magacayaga iyo muuqaalkayaga iyo maxaan ku dhahdayay jiritaankayaga wax ku cunaya waxaanu leenahay xaq hoos uga diga oo Ilaahay ka yaaba oo adduunka ka dadka ka xishooda oo maadada ka xishooda oo rayidka ka xishooda oo dumarka iyo carruurta ka xishooda haddaad kari weydaan annagu codkayaga waanu dhiibanay Ilaahay baanu ergownahay oo hay'adaha xuquuqda bini'aadanka aanu ergownahay oo WFP baanu ergownahay Sabantu Nimco Xasan Cabdi hadday noogtahay iyo haddaysan noogeen toona annagu waxba kama hayno ayuu nooc waxaanu ka hayna ma jirto hadday hay'adda iyadu mas'uul ka tahay ka soo eegta kaamka ha timaado maxaad iga haysan ha tiraahdo haddaysan daacad ka hayna dadka hantida dhacay bay kamid tahay ama ganacsadayaasha kaarkayga iibsaday kamid tahay deesaha ku goosato dadkan halkan jooga waxa weeye waxa maanta soo keenay oo isugu yimaadeen intii badan ba soo noqnoqday oo tacaadiya oo dhibaato adkeysan kara waayeen dhibkaas waxa weeye NGO-ga la yiraahdo Sabantu ayaa waxa weeye dhibka dadkan u geystay NGO-gaas waxa weeye fadhigiisu yahay iyo xaruntiisu Garowe oo ay madax ka tahay waxa weeye gabadha la yiraahdo Nimco Xasan Cabdi ay uga tahay waxa weeye Sool iyo Sanaag iyo Cayn ay madax uga tahay NGO-gaas waxa weeye 5 jeer oo waxa weeye deegaanka Buuhoodle wuxuu soo bixeen ayaa Shangal laga qadiyay mar walba waa la hadalay gabadhi baan la hadalay oo joogayaasha ay soo dirsatay baan la hadalay waa u sheegnay deegaanka ugu weyn gobolka Cayn inuu yahay Shangal waxa weeye gabadhaas waa iska indhatirtay Nimco Xasan Cabdi la yiraahdo hor joogayaasha ay soo dirtay shaqaalihiina waxay keeneen in waxa weeye kaararkii ganacsi laga dhigo oo dadkii masaakiinta ay lagu talagalay ayaan mas'uulka ka aanu ahayn aan la soo gaarsiin waxa weeye si kale loo isticmaalo marka waxaan u sheegaynaa hay'adda WFP in waxa weeye kaarkii loogu talagalay dadka masaakiinta ee danyarta ah in la siiyo in si kale loo isticmaalay si khaldan loo isticmaalay markii shanaad ay soo baxaan oo jooga Sabantu uu soo qaatona Shangal oo deegaanka ugu weyn gobolka Cayn aan saamigiisina la siin waxna laga siin 5 jeer marka arintaas cod dheer waxaan ku weysiinaa in hawshaasi degdeg wax looga qabto horena waa looga hadlay gobolka Cayn NGO-ga Sabantu in waxa weeye uu wado musuqmaasuq waxa ka hadlay gudoomiyihii golaha deegaanka ayaa ka hadlay shawrinkii la oran jiray hay'adda WFP ayaa dad waxa u soo dhiibtaa waxay qondadayadii
nimco xasan cabdi gabadha la yiraahdo iyo howlwadeenadeeda oo haddaan carabka ku dhufto kuwa reer Buuhoodle Cabdifarax iyo ka midka yihiin ay noogu soo dhigto kuwaas oo aan soo gaarin 5 jeer baa la soo diray 5 jeer boqol baa marna soo gaaray boqolkiina way gubteen baana la yiri FB waxaan leenahay anagu hawshaas idinka ku shaqo leh nama soo gaadho WFB anaga nama soo gaadho 1800 walba hore u deganay deegaanka 200 oo qoys ku dhawaadna way timid oo reer Laascaanooda oo dadka qof walba qofkii Laascaanood ka qaxay qof walba qofkiisa uu ku qaxo dhakada ka saaran yahay waxa la tahay inaan qofna meel cilaad ee tagaynin goobtan horta marka hore aan gudbiye waxa weeyaan waa Shangalle indhibiga Shangalle marka warbixintiisa gudbiyo waxa degan 1800 iyo dad 200 oo qaxoonti cusub ah oo aan diiwaan gashanayn oo qoys oo u dhigma in qoyskiiba ama 6 qof ama 7 qof ay degantahay waa dadka awoodda leh ilaahay bay hadii alla ku rooyay waa dad barakaca waa dad xoolo ka baxeen waa dad hadii alla ku rooyay aan hadii alla ku rooyay dadkii ay hay'adu wax siin jireen ah waxaanu markaa ka cabanaynaa waxa jira inta la yiri waxa la yiraahdaa sabtu intogaasi waa Soomaaliya sanad yacayn ama waa Buuhoodle matalan marka la yiraahdo ha marka waxa weeyaan intogaasi dadka inta leega faraha leh ee qaxootiga barakaca waxa la wuxuu ka hayaa ma jiro waxa naga soo gaaray muddo imika aan u malaynayo inay tahay 2 sanadood oo dhow 100 kaar baan naga soo gaaray dadka inta leeg 100 kaar way go'ayeen hadda dib baa loo gubay waxa jiray 2 imika arrimood oo isku xigay oo dhow oo uu farax mas'uul ka ahaa shan weeye isku xigay imika inaanu 100 ka helnay waxa yagay kuwo imika u sokeeyay oo 3,000 iyo googo aha iyo 2,000 iyo 1,000 iyo googo oo aan midkoodna waxna naga soo gaarin waxaan leenahay inta ay cabashadaas qusayso garowe ama fadhida ama WFB aanu anagu dacweynaynaa gabadha magaca leh jooga hadii alla ku rooyay ka dambaysa waxa weeye iyo waxaanu ka ergoonaynaa iyo cidda Buuhoodle jooga ku soo qaadatay ka sokaysa WFB baanu anagu dacwadayada u gudbinaynaa hanaga qabato aan ognahay in jooga lagu soo qaato balli cidla ah iyo dhul cidla ah oo la soo qoray oo anagu aanu ognahay yaa jooga lagu soo qoraa oo aan deganayn waxaanu ognahay dadkaasi in wiilal yar yar oo dad hantiila ah oo Buuhoodle degan oo dadka ugu lacagta badan leh inay 200 xambaartaan waxaan ognahay dadkaasi in loo marayn karo in bahalaha lacag la siisto oo la iibsado oo mar haddii dadkii xaq u lahaa la soo gaarsiin waayay in la iibsado oo ay u dhaxayso ninka injooga soo qaada iyo dadka ganacsiga wata ay u dhaxayso baaq waxaan uga dirayaa hay'adda WFB baan baaq uga dirayaa baaqaasi oo ah baahiyaha ka jira kaamka Shangalle kaamkan waxaa degan 2017 ayaa la degay 6 sanadood baa la degan yahay 6 sanadood oo ay maanta aanu ka hadlayno halka uga soo banaan baxnay baahiyaha yaga iyo duruufaha nagu xeeran kaamka hadii aanu nahay oo aanu ka hadlayno danaha yaga waxaanu la hadlaynaa mar labaad baan ku soo celinayaa hay'adda WFB baanu baaqayaga u diranaynaa oo ay mas'uul iyo wakiil uga tahay gobolka Cayn Nimco Xasan Cabdi waxa weeliya kuwa Buuhoodle nooga iyaguna wakiilka nooga ah ee ka soo qaada iyada ka soo qaada NGO ah waxa weeyaan haddaydan ganacsi idinku isku darsanin oo aydan u heshiinin waranagu barigaanu yaryarayn ee dawladdu dhisnayd wax kasta oo soo baxa dabagal bay lahaan jireen haddii islaamnimo jirto waxay la tahay dawladdu ma jirtee haddii islaamnimo jirto xuquuqul bini'aadanimo jiro waxa weeyaan wax kasta qof kasta xisaab buu leeyahay waa la xisaabtama annagoo edbiya oo qaxoontiya baanu qofka maanta hawl loo diro la xisaabtana sideeba ummadan
iyo NGO-yo iyo hay'ado iyo maxaan ku sheegay wakiilo sidee bayaan u lahayn maxaan ku sheegay la xisaabtan 6 sanadood hay'adda WFP waxaa ka soo baxa hanti fara badan waxaa ka soo baxa kaarad waxaa ka soo baxa dhaqaale ummadda gobol waliba wixiisa leeyahay annagu haddaanu nahay kaamka Shangalle 2000 ee qoys degan tahay maalin walbana dadka hor lihi yimaadaan waxa weeyaan qof kaar lihi naguma jiro hal qof oo kaariyo dhamaliyo naafi ku qaataan naguma jiro marba boqol naloo qoray boqolkiina waa nalaga jaray sida dadkii horeba idin xaqiijiyeen anna waan raacinaya waa nalaga jaray waa nalaga balaasa weydinka gubtay baa nalaayay nalooma sababaynin war wax gubtaa ma jiraan wax kor ka go'aana ma jiraan hantidayadu ganacsi bay ku soo gashaa Buuhoodle iyo qolada ka soo qaada hay'adda lafteeda ganacsi u dhaxeeya baa jira oo aanu ka cabanaynaa waxa weeyaan hawsha waxa laga qabto hal laga soo jawaabo macallimiinta ayaan anigu ka mid ahay maalintii sidaa loo degay ayaanu waxaanu ururinay oo ku ururinay ilaahay dartii dadka yagii xooluhu ka dhamaadeen ee soo barakacay caruurtii fasalka 6aad bay maraysaa wali hay'ad iyo dawlad iyo wax na soo eego la warbal dadka xadadka leega halka ku nool waxa ay ku qabaan ila waa dad Soomaaliyeed ay bay ka soo urureen miyay ka yimaadeen hatta kuwa Buuhoodlena Allah ka yeelay war waxay meesha ku qabaan iyo waxay ku nooliyeen iyo nidaamkooda hal soo eego waxaan inta ahayn ma hayno waxa weeyaan waanu cambaaraynaa iyagana waxaanu leenahay xuquuqdayadii meel saara xuquuqdayadii aanu lahayn ee aad idinku wakiil nooga ahaydeen ee noo soo qaadi jirteen meel saara 6 sanadood hal macallina oo $1 qaatay ma jiro ardadana lagama helo dee waa dad xoolo intay ka dhamaadeen baqtiyayo oo meel jooga hay caafimaad baanu u baahannahay hoy baanu u baahannahay dayactir baanu u baahannahay waxa weeyaan caafimaad baanu ka cabanaynaa oo aan wax alaale waxna soo gaadhaa jirin oo nalagu soo qaato hay'adaha ay quseeyaan oo ay ku soo baxda dawadu oo ay ku soo baxdo maxaan ku sheegay xanaanada ilmaha oo ay wax waliba ku soo baxaan qaybtayadii aanu lahayn war waanu u baahannahay haddii aan hore naloo danan jirin hadda ha nala eego oo ha nala daneeyo dacwaanu nahay oo ilaahay baanu dacwowna masaakiin baanu nahay bacadkaasaanu isugu soo baxana hawshana idinkaa nooga mas'uula oo nooga wakiila xuquuqdayadii meel saar cabashada laba qolana waa ka cabanaynaa qolana waa u cabanaynaa qolo waa ka cabanaynaadoo sababtu waa ka cabanaynaa gabadha la aado Nimco Cabdi Maxamed Nimco Xasan Cabdi waanu ka cabanaynaa aad baan uga cabanaynaa hadda qurab maaha iyo Farax Cabdi Farax labadaba waa ka cabanaynaa waanu la hadalay waanu la shirnay teleefankan kala shirnay gaar ahaan baanu la shirnay waanu ugu gacan siidhay ummadda aanu idiin sheegnay inta leeg hay'adda meel ka timaado oo kaar caawa ay ku soo carabaan hal qof kaar mal WFP wax ma siiso cid kale wax ma leh dhammaan alif baa laga soo bilaabaya waa dad maata oo xoolahoodii abaarihii baanaa ee horay u soo jiiray ee 2016 ilaa 17 dadka helay ay xoolahoodii ka baxeen dadkaas wuxuu biyo soo doontay halka kan waa bali meesha uu deganahay baraga maaha magaalo maaha waa ceelka dheer bali diraacdiina gura نقينا الروب مركون ولا أن كعمنا ويا وإحنا قالنا كتير سنة هم بجرت. نجاة محمود صلاة تلفزيون عالمي CBA مقالة أبوه.